daawadayaal kulanti wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaan wararka maanta qodobada kuwada ugu waaweyn waxaa ka mid ah weerar ku bilowday qaraxyo iyo dagaal toos ah oo weli ka soconaya shabeellaha hoose iyo al-shabaab oo la wareegay qaybo ka mid a degmooyin muhiim oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan dagaalkaasi khasaaraha uu geystay meelaha uu ka soconaya iyo weliba waxa ay ka yidhaahdeen dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya ayaan soo qaadan doonaa qodobada kale waxaa qeybka ra-iisul xasan cali kheyr waxa uu qorsheynaya isku shaarneyn degdeg ah inuu ku sameeyo golihiisa wasiirada iyo suurtagalka wasiirada xilalkooda weyn kara xog culus ku saabsan cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka digaya khatarta amni ee dalka u geli kara waa haddii madaxweyne farmaajo uu sameeyo hal arin ama hal tallaabo uu ku dhaqaaqo madaxweyne dani wuxuu shaqada ka eriyay taliyaasha ciidamada badda ee puntland farmaajo iyo lafta garan oo ku kala fogaaday arrin masiiri ah oo horey lafta garan looga ballan qaaday waxaa kaloo saaxiibeel qayb ka noqon doonaa puntland waxay xayiraad kusoo rogtay shirkadaha ka shaqeyn jiray arrimaha xajka deegaanada puntland iyo weliba waxaa kaloon eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee gado gaar ahaan beled xaabo oo ay dagaalo ay ka dhaceen ka mid noqo saaxiibada joogtada ee janalkina ugu xiran subscribe dhe gambaleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan wararkii weliba warbixinada gaarka halkeenaan soo gelin aan ku hormaro shabeellaha hoose iyo weliba dagaaladii maanta ka dhacay waxay ka yidhaahdeen dhinacyo halkaasi dagaalameen faahfaahino dheeraad ayaa kasoo baxay weerar xoogan oo saaka aroornimadii hore dagaalyahanada ururka al-shabaab ay kula jarmaadeen qeybo ka mid a degmada qoryooli ee gobolkaasi shabeellaha hoose weerar kale oo ku bilowda qarxii loo adeegsaday gaadiidka walxaha qarxa laga soo buuxiyey dagaalka folkafoola oo u dhexeeya ciidanka dowladda iyo weliba dabley hubeysan oo kamid a ururka al-shabaab ayaa ka dhacay degmada qoryooli waxaana soo baxaya macluumaad ku saabsan in dableydan hubeysan ay gudaha u gashay xero militari oo ku taala gudaha degmada qoryooli ee shabeellaha hoose sidoo kale wararka ayaa sheegaya in dagaalyahanada al-shabaab ay qaraxay ku burburiyeen buundada degmadaasi oo mid muhiim u ah isku socodka dadweynaha iyo weliba ciidanka dowladda khasaare kala duwan isugu jira dhaawac iyo dhimasho ayaa soo kala gaaray dhinacyada dagaalame waxaana lasoo warinaya in khasaaraha ugu badan askarta dowladda ay wajahayaan gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax oo si adag kaga hadlay weerarkan ayaa sheegay in ciidamada ammaanka dowladda ay hor istaageen najax ayaa sidoo kale tilmaamay in dagaalyahano badan oo ka mid a ururka al-shabaab ay toogashay ku dilay ciidanka dowladda kuwaasoo isku dayay in gudaha degmada ay soo galaan waxaan u hambalyeynayaa ciidamada degmada qoryooli kuwaasoo difaacay shacabka iyo weliba degmada ka hor inta aan la qarxin baawur walxaha qarxa laga soo buuxiy aan lagu weerarin buundada degmada waxaa al-shabaab loogu dilaa halkaasi maleeshiyaad badan waxaa loogu furtay hub ka mid a hubkii ay ku dagaalamayeen qoriga AK-47 iyo hub kale waxaan haynaa 3 ka mid meydadka al-shabaab ay ka careen ayuu yidhi gudoomiye najax oo la hadlay janaalkeena dhanka kale weerarkan oo ku bilowday ismidaaminta ayaa lagu soo waramaya in dagaalyahanada al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka ceel saliine oo saldhig militari isla shabeellaha hoose ku yaala war ka soo baxay kooxda al-shabaab waxaa lagu sheegay in howlgalkan ay ku dileen 40 ka mid a askarta dowladda kubana ay gacanta ku dhigeen shalay ayay ahayd markii ciidanka dowladda soomaaliya ay weerareen tuulooyin dhowra oo ku yaala degmada qoryooli inkastoo markii dambe ay dib kaga soo laabteen ciidanka dowladda tuulooyinkii ay weerarka ay ku qaadeen oo ay dib kaga soo laabteen haddaba daawadaal dhanka kale waxaan eegaynaa waxa ay ka kala yiraahdeen taliska militariga soomaaliya oo arrintaani ka hadlay iyo weliba al-shabaab qudhooda taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa war ka soo saaray weerarkii al-shabaab ee uu ku qaaday ciidanka dowladda saldhigooda militari ay ku leeyihiin deegaanka ceel saliine ee shabeellaha hoose wakaalada wararka ee dowladda ee soona ayaa daabacday in al-shabaab khasaaro lagu gaarsiiyey weerar al-shabaab ay ku qaadeen saldhig militari oo dowladdu ay ku leeyihiin deegaanka ceel saliine waxaa intaa lagu daray ciidanka militariga soomaaliya oo ka feejigan weerarada shabaab inay ka hortageen islamarkaana ay gaarsiiyeen khasaaro dhimasho dhaawac dabledii shabaabka ee weerarka soo qaaday dhanka kale war ka soo baxay taliska ciidamada xoogga dalka oo lagu faahfaahiyey howlgalkan ay ku qabsadeen deegaanka la yirahdo dhaarshane bandarfeyle iyo beegaaro iyo deegaano kale oo ku geedaaman tuulooyin hoostaga degmada qoryooli ee shabeellaha hoose al-shabaab dhankooda weli wax waraa maysan kasoo saarin marka loo eego dagaalada dhacaya inkastoo war ay ku daabaceen baraha warkooda lagu faahfaahiyo keliya waxay kaga hadleen dagaalka ay ku qaadeen deegaanka ceel saliine laakiin ma jiro weerarka ismidaaminta ahaa ee qoryooli meel ay kaga hadleen waxay sheegaysa al-shabaab in khasaaro nafeed iyo mid maaliyadeedba ay gaarsiin ciidanka dowladda ee ku sugnaa saldhigga ee weerareen ee deegaanka ceel saliine
ma jirto ila madax bannaan oo xaqiijin kara warkan ay sheegeen taliska militariga ee al-shabaab oo la xiriira khasaarada dhinacyada ay sheeganayaan iyo qaraxyada weerarada ku bilowday shabeellaha hoose ka dhacay. shabeellaha hoose qaybo ka mid ah weli waxaa maamulaya al-shabaab, dhanna dowladda federaalka ayaa ka joogta. wixii macluumaad ah ee daawadeel kusoo kordha xaalada shabeellaha hoose oo weli dagaalo ay ka soconayaan qoryooley iyo weliba wadii ay warar ay kusoo kordhaan dagaaladaasna wararkeena dambe ayaad ku daawo doontaan biidni illaah. qodobada kale wararkeena ku jira ayaan u gudbi doonaa ee xog ku saabsan janaalkeena waxa uu helay Ra'iisul Xasan Cali Kheyre oo damacsan yahay in isku shaandheyn uu ku sameeyo golihiisa wasiirada waaweyn ayaa suurtagal ah in leeyahay in xilalkooda ay waayaan ama ay iska dhex arki waayaan isku shaandheynta la qorsheynayo. Ra'iisul Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa qorsheynaya isku shaandheyn uu ku sameeyo golihiisa wasiirada ila ka tirsan xukuumadda. waxay noo sheegeen in qorshahan uu ka socdo xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana Ra'iisul Wasaaraha lala wadaago un aqbalaada isku shaandheynta golaha wasiirada. waxaan eegi doonaa shakhsiyaadka xilalkooda weyn karaan sidaan xogtan ku helnay. Ra'iisul Xasan Cali Kheyre ayaa maalmo ka hor waxaa la shaaciyay inuu isku shaandheyn ku sameyn doono golihiisa wasiirada, waxaana jiray in xubno wasiiro ah oo lasoo bandhigin xilalkooda ay weyn karaan kuna la isku bedeli doono. wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa la sheegay inuu ka mid noqon doono xubnaha xilalkooda ku weyn doona isku shaandheynta la damacsan yahay in la sameeyo, inkastoo si dhab ah aan loo ogeyn. xukuumadda Soomaaliya ayaa muddo 1 sano ah u harsayn waxaana ay ku muteysatay halkaasi waxaana 3 sano dowladii ku muteysatay dhaliil ammaan iyo waliba in xukuumadda federaalka lagu amaano howlaha kala duwan ee qabanaysa. waxaana soo baxay macluumaad ku saabsan in wasiirro muhiim ay xilalkooda weyn karaan kuwana aan xilalka loo kala bedeli doono. ilaa hadda xubnaha la diiwaan geliyay suurtagalka ayaan janaalkeena uu helay xilalkooda weyn kara ayaa waxaa ka mid ah wasiirka warfaafinta Soomaaliya, wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka arrimaha gudaha oo badi u badan 3daasi wasiir inay waayaan xilalkooda wasiirnimo. dhanka kale aan eega ee Farmaajo iyo lafta gareen waxay ku kala fogaadeen arrin masiiri ah oo marka hore labada hogaamiye ay ku kala heshiiyeen. khilaafka dhanka siyaasadda ay ku saleysan ayaa soo kala dhex galay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan lafta gareen iyo waliba dowladda federaalka Soomaaliya. khilaafkan ayaana salka ku haya nooca doorasho ee la qorsheynayo in dalka ay ka dhacdo 2021. villa Soomaaliya damacsan in doorasho qof iyo cod ay wadanka ay ku qabato. madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareen ayaa ka biidiidan nooca doorasho ay rabto villa Soomaaliya in dalka ay ka dhacdo, taas ay si cuslaysiinayso khilaafka labada dhinac u dhaxeeya. madaxweyne Farmaajo oo ku dhagan in dalkan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ayaa qorshahaas waxa ka soo horjeeda badi madaxda maamul goboleedyada. lafta gareen oo la ogyahay in dowladda federaalka xeelad awood iyo waliba mid dhaqaale ay ku soo saartay ayaa hadda ka soo horjeestay qorshahaasi. wararkan ayaa daawanaysa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu ka digay khatarta amni ee dalkan uu horseeday madaxweyne Farmaajo, isagoo sheegay in loo baahan yahay in laga qabto 2021 qorshaha madaxweynaha ama laga hortago. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa madaxweyne Farmaajo ugu digay in xilligan xilka uu isku dhajiyo marka muddo xileedkiisa uu dhamaado. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in hadda uu wada hadallo u socdo xisbiyada mucaaradka iyo qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayagana ka arinsanaya waxa laga yeeli doono haddii ay dhacdo in dowladda Soomaaliya ay isku dhajiso ama madaxweyne Farmaajo isku dhajiyo xukunka muddo kororsi ay sameeyaan. wuxuu carabka ku adkeeyay inaysan yeeli doonin dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dowladda hadda ay wado oo laga dareemayo. waxaanu sheegay in dowladdu ay damacsantahay qorshe muddo kordhina. mucaaradka dowladda ayaa walaac badan ka muujinaya xaaladda dalka iyo sida madaxweyne Farmaajo oo si nabada xukunka uu la wareegay, laakiin hadda ay adkaa doonto in xukunka uu ku wareejiyo. waxaa soo baxay qorshe dalka lagu gelinayo 2021 isan doorasho ka dhicin oo muddo sanad ama 1 sano ama dheeraad ay dowladdu ay ku darsato. qeybaha dambe wararkan aan soo gaaray Puntland ayaa xayiraad ku soo rogtay shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajka. wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta iyo dastuurka ee maamulkaasi Puntland ayaa si ku meel gaar ah shaqo joojin ugu sameysay shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajka.
warqad qoraal oo ka soo baxay wasiirka cadaaladda maamulkaasi mudane Cawil Sheekh Xamuud ayaa si rasmi ah loogu joojiyay shaqooyinka shirkadahaasi waxaana loo qabtay muddo 7 cisho inay ku yimaadaan xarunta wasaaradda si loo hubiyo dhammaanba shirkadaha arrimaha xajka ka shaqeeya sidoo kale warqadan waxaa lagu sheegay in shirkadahan ay fulinayaan amar ka soo baxay dowladda amar ka soo baxay maamulka oo tallaabo laga qaadi doono ugu dambeyn wasaaradda cadaaladda ayaa tilmaantay in ujeedada ugu weyn ay tahay in la socdo hubinta iyo waliba isku shaadheynta lagu sameynayo golaha shirkadaha ka shaqeynaya arrimaha xajka ugu dambeyn madaxweyne Daniisa waxa uu xilalkii uu ka qaaday taliyaasha ciidamada badda ee maamulkaasi madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa soo saaray wareegto xilka kaga xayuubanaya agaasimaha taliyaha iyo waliba taliye ku-xigeenka ciidanka badda ee BIF-ta dikretadan ka soo baxday madaxweynaha ayaa waxa lagu magacaabay 4 taliye madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa xeer madaxweyne uu ku soo saaray magacaabista 4 taliye oo kala waxa xilka taliyaha laga qaaday taliyaha iyo waliba taliye ku-xigeenka ciidanka waxaana lagu bedelay taliyaha guud ee ciidanka Admiral Farax Diiriye Admiral Maxamed Saciid Ciise Admiral Cabdilaahi Axmed Yuusuf oo 3 taliye la magacaabay warqadan ayaa soo baxday iyadoo la sheegay in ay dhaqan gali doonto marka uu saxiixo madaxweynaha warbixintan ayaa daawada lagu dambeysay wararkii maanta aad ka daawaneysay channelka YouTube-ka xulashada wararka ayaan ku soo gabagabeynaya wararka kan xiga saaxiibayaal inta ku kulmi doono nabadgelyo